ciidamadu waxay la wareegeen subaxnimadii isniinta deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose sida Sabiib iyo Caanoole ayuu kula wareegay dagaalku dhex maray ama ay isaga hor yimaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka Danab iyo maleeshiyada Al-Shabaab. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan Danab waxay gacanta ku dhigeen 4 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayna ku jiraan horjoogayaal waaweyn waxaana lagu wareejiyay 4taas ka tirsan maleeshiyada hay'adaha sirdoonka xoogga dalka dowladda Soomaaliya si loogu sameeyo baaritaano dheeri ah. ciidamadu isla maalin ahaantii isniinta galinkii dambe waxay gacanta ku dhigeen booyad laga soo buuxsho waxyaalaha qarxa lana aaminsan yahay in la rabay in la soo geliyo magaalada Muqdisho. ciidamadu waxay sameeyeen meel banaan ayay geeyeen wayna qarxiyeen wax qasaara ay u geystay qaraxaasina ma jiro. ayagoo ciidamadu horay u sii watay howlgalkoodii isla maalin ahaantii dambe ee Talaadada waxay sameeyeen guulo la taaban karo ayagoo la wareegay deegaanada kala ah Beledu Aamin, Macalinka iyo Cumar Beer ayagoo maleeshiyaadka Al-Shabaab markay ogaadeen inay ku soo fool leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ay ku soo wajahan yihiin isaga huleelay deegaanadaas. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan baaq u jeediyo si ay gacmo furan ugu soo dhaweeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee u istaagay ama uga soo ruuqaansaday talisyadoodii in ay ka dul qaadaan maleeshiyada Al-Shabaab ee daashatay ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel walba aad joogteen ciidamadu ku soo gaaraan meelaha ay ku dhumaaleysanayaan ururka argagixisada ee Al-Shabaab ha loo sheego ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si god walba iyo geed kasta ay galaan looga soo qabto.